arkaa ma fahantay dhibkan waxaan leenahay caalamka naga soo gaaro intina wasaaraha madaxweynaha inay soo dhawaada Soomaaliyeed muqdisho sidan ayaa ka xaaladii muqdisho ayaa kuleel isku bedeshay oo dadkii sicir bar ayaa ku dhacay hooyooyin masaakiin ayaa mar walba cabaadaya oo abaadka cabaadayaan iyo banaabixi sabana midna laga soo jawaabin hooyooyinka qaad gada waaye waxay ka cararayaan sicir bararka ku dhacay ayaa ka cabaadayaan ilaa dowladdu soo jawaabay iyo qof ka shaqi ma jiraan waxay ka qaali iyo lacag la'aan ayayna u carareen hooyooyinka masaakiinta ayagoo maanta ganacsiga haysan ay ganacsiga haysan lagu la wajibaaro oo lacag qaali laga siiyay dowladdu waxay ka codsadaan inay maarta arrinta ka qabtaan waa markii tobanaad ay banaabaxayaan habeeraatay wax warkooda soo qaad malahan bal dhageysanno waxay ka cabanayaan dhibka haysta iyo waxa lacagta saaray in qaadka dad loo xir gooniyo loo dhageysanno dooni mayno dooni mayno diiga bilaayno kelinka cuno dooni mayno qaada ma rabno lacagtayda Kenya dhamaysatay wax qaaliyeena u qashinayna loo soo dhibaan taad qurxoonna ma aha qaalina waayo wax aan haysana male guriyeeni waa gadna waa dhameen intuu dambeysay halkan waa suuq bacaad ee degmada Yaaqshiid waxa ku banaan baxaya haweenka iyo maamooyinka iibiyo qaadka kuwaas oo ka raadsada qutulyoomka caruurtooda waxay maalmihii ugu dambeeyay dhigayeen dibad baxyo balaaran oo ay ku dalbanayeen in laga dhimo qarashaadka badan ee lagu soo dalacay taasoo u suuragelin in ay faa'iidadii ay ka heli jireen ama nolol maalmeedka ay ka raadsan jireen ganacsiga qaadka ay hoos u dhacday qaar kamid ah haweenka qaadka iibiya oo dibad bax ka dhigay suuq bacaad ee degmada Yaaqshiid ayaa ka dalbaday madaxda dawladda inay wax ka qabato canshuuraha iyo lacagta tirada badan ee lagu soo kordhiyay taasoo ganacsigooda caqabad ku noqotay maamooyinkan ayaa sheegay inaysan haysanin shaqooyin kale oo ay ka soo saartaan nolol maalmeedkooda taasoo ku qasbaysa in shaqadaani ay ku sii jiraan waxay sheegeen in deemo badan lagu leeyahay qaarkoodna ay iibiyeen guriyihii ay ku noolaayeen kacbanayaan dadkaana ay dhiba madintaas yaa $7 ay gadantaa maanta waxaan gadayaa $3 qof iga rabta male habeen kasta lacagta waa la iga rabaa kun shilin ma haysto iskama seexan karo dayna loogu leeyahay waxaan ka baryaynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ra'iisul wasaaraha madaxweynaha inay naga soo gaaraan bandoomiyaha baarlamaanka inay naga soo gaaraan ayna danaynayaan shacabkooda ay naga soo gaaraan $9 naga gadan mijintaas 9 naga gadan waxaan gadoonaa $4 khasaaro oo nagu filan maan wax aan haysana male guriyeeni waa gadna waa dhameen intuu dambeysay waxaan rabnaa gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka Banaadir inay ka hadlaan jaadkan oo guriyaha laga wada dhistay anugana aan gaajoon sano guriyeena wada gadano baahana xijaab la iska bedeli karno kab la gada karin waa in cadaalad ah helnaa hadda shacabka Soomaaliyeedna hay ugu yeelo weeyay rubac jaada waxaan ku cuni jiray $4 aan ku cuni jiray hadda $9 leeyahay $6 waxa ayna ma awood waa ka goorma ku dambeysay qaada soo qaaliyoobay mar la ii qaado ama sa qof walaalo isida ma ahna ugu kala ma oo saameyn ku yeeshay waxa soo shaqeysay in dadka lacag badan intii aad soo shaqeysay caruurtaada iyo biilkaaga inaad waxaan shaqeystaa midka dhagaxlaha wada iyo midka maaragtay kodada dabalka iyo midka godka qoday iyo mid Soomaaliya waxay u qaybsantay dad aanan maaragtay dadin dayar ay u qaybsantay lacagtayda Kenya dhamaysatay wax qaaliyeena u qashinayna loo soo dhibaan taad qurxoonna ma aha qaalina waayo ka cabanayna Soomaaliyeed waa u jeedin hooyooyinka masaakiinta cabaadayaan kuleel dartiis ay cabaadayaan iyo dhaqaale daro dalka ka jira iyo shaqada yarta ay seen oo ka ganacsanayeen oo lagu qabsaday oo markii tobanaad ee banaabaxayaan oo banaabaxooda wax ka soo jawaabay aysan jirin waxa lagu leeyahay qaadka waxaan Muqdisho la keeno leenkiis dad ayuu xiran yahay oo lacagta saarta oo dadka waxa ay rabaan saaraan qaaligaas ay ka cabaadayaan in maaragtay hoos loogu dhimo waa masaakiin waa hooyooyin waa maanta meelaha ilma agoon ay karsanayaan banaabaxii toona banaabaxeen waay wax ka soo jawaabay ma jiro muuqaalka meel gaarsiiyay adigu aad maasan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.